فنان بحيد دليل دمشق داوع عياتني أنت اللي دورتي مدحونها جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو waxa ay ka socdaan degmada Cabudwaaq iyo deegaano badan oo kamid ah degmooyinka dalkeena dibadbaxa maanta ka socda degmada Cabudwaaq oo u muuqda mid ay bulshadu u diyaar garoobeen waxa ay wateen calanka jamhuuriyadda iyo sawirka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana dadku socod isugu jira gaadiid iyo lug ay ku mareen wadooyinka iyo xaafadaha degmada kuwaasi oo in badan socday waxaana markii dambe ay isugu yimaadeen stadiumka kubadda cagta ee Roobday halkaasi oo ay kula hadleen bahda warbaahinta qaar kamid ah dadkii soo abaabulay dibadbaxa maanta ummadda Soomaaliyeed guusha ay gaartay rafaadka ay ka baxday doorashada ay samaysay oo mahadnaqaynaa banaankaan u taaganahay ku guulaysanay Soomaaliya waxaan noolaato صباحاني وحكة الجمهورية دولة جعيلك الله يفرماته كسر وين من درس الديجان كسر وين من جعيل قارا وحان كسر وين ودرية الصومال يا حبيبي أوضو يا حبيبي أوضو محمد عبد الله فرماجو محمد زياد وكريم ما قام بعض له قام بعض له هاي ليه وعوية وعوال بكفنا وعوال بوصلنا لربطه لكت يا بد يا بري يا بادية يا مقالة أنت وسيبها هي Soomaaliya maanta ay tagul baa u dhalatay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa salaameynaa Soomaaliya raas xasaar iyo raas gambooni gacmaha ay haysataa dibaanadii maanta soo doortayna kuwa guulaysan oo jannada alla ugu bishabeeyay madaxweynaha cusub dalka Soomaaliya waxa ku dooratay ummadii Soomaaliyeed baarlamaanka kaliya ma ahan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ku dooratay meel walba ay joogaan gobol iyo degmo iyo tuulo meel aan laga dooran ma jirto waxaan ku leeyahay oo kula ballameyna ummadda Soomaaliyeed doorashada ay kugu dooratay waa inay hirgashaa waxa ay ka filaayaan waa inay ka helaan si kastaba ha ahaatee banaanbaxan ayaa tan iyo intii uu bilowday habeennimadii xalay waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii rasaas loogu dabaaldegay madaxweynaha cusub habeennimadii xalay ay sababtay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawaca mid kale taasi oo qaar kamid ah dadkii dabaaldegay ay rasaastu hoos uga dhacday dibadbaxa ayaa weli sii socda degmada waxaana la arkayaa dadka iyo gaadiidkii oo soconaya jidadka degmada taasi oo saxmadda kor ay u siyaaday marista wadooyinka degmada iyadoo ay ciriiri tahay in si sahlan lagu maro wadooyinka degmada عبد الكريم أحمد بلحن راديو TV قرنكا عابدواق